دنكارا كفوغادي دلكاغا وهيلم iyaga dooro danta guud ku waraaja dangaarka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro barnaamijka wadooyinka tirada badan ee deegaankan soo gala waxay ka hadleen odayaasha iyo dadka deegaanku caqabada uu leeyahay kaliya meeshu markay noqoto meel istiraatiijiya faa'iidadeeda iyo dhibaatadeeda waxa tira badan faa'iidadeeda cilmiya aqoon maskaxa fimaaliyo aqli lagu hubayo aqalnimo ku hagi kara cilmiya aqoon maskaxa fimaaliyo aqli lagu hubayo aqalnimo ku hagi kara lama amaane aqal dilwaake dadaalku amuujay daryeela aqoonta dalkaaga u faydan iyaga dooro dadaalku amuujay daryeela insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno hawsha danta guud waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dadka dhaqaalaha haysta inay ka qayb qaataan danta guud si ay u suurta gasho in xarumo dan guud iyo horumar isbitaallo jidad iskuullo xarumo dan guud intaba in laga helo xaryaha ciidamadu waxay aasaas u yihiin dawladnimada marka waxa nagu kalifay inaan xoogga intaas la egelino maskaxda intaas la egelino maalka intaas la egelino kuwa kale oo badan oo noo diyaarsan way jiraan oo aan rabno inaan ka howlgalno intiidiin maanta khayraadka daboolan bidaha ka qaada isaga dooro adna dhiin war waxaan lama qaban karo gaariyaashan midka ugu qaalisan iyo midka ugu raqiisan intaba waan gadan karnaa laakiin waxa la rabaa fikirku qofna keenista uu leeyahay qofna hirgelinta uu leeyahay walaalayaana fikirka keenay aad iyo aad u mahadsan yihiin anagana waxaan la ka rabaa hirgelintii fikirkan iyo sidii uu dhaqaaqi lahaa fikirka inaan ka ballaarino inaan dad badan ugu yeerno inaan bulshada dhan gaarsiino inaan social media hadda wax la isku gaarsiiyaa si weyn u isticmaalno marka dambe ilaa aan gaarno bulsho ayagoo fadhiyo bis lacagti laga yabo gaariga koobaad iyo gaariga labaad inaan isku keeno inaan gaarsiino inaan ka daalin wax walba waad aragtaan oo mira dhala bulsha u adeegta dada ka soo shaqeey fikirkan dada abuura kabacdina qofkii fikirkan abuura wuxuu helaa qof labaad qof saddexaad qof afaraad ilaa ay ka gaaraan dadkii inay iskaabi karaan silo tabargoyo laanu ushkiyo diifta adeer dad nadiifa halkaaga u dooro sida ujeedaanba waxaan dhex joognaa hoolkii xarunta taliska qaybta 12aad gurigii 24kii January iyo xaradii aan shaqadooda bilownay ayaa hadda waxay ku sii shaqaysaa meel wanaagsan aan dadkii ugu horeeyay ee isxilqaan u istaaga hadaan ay reer Galmudug waxaan dhisnay xarumihii dawladda kuwa ugu muhiimsanaay adduunyada waxa lagu xisaabtamaa dawladda ay ka ciidan badan tahay ay kana amni badan tahay kana qorshe fiican tahay kana horumarsan tahay waxaan u istaagnay in aan dhisno xarumihii dawladda gaar ahaan kuwa ciidanka xarunta taliska qaybta 12aad iyo xarunta taliska nabad sugidda sidaas daraadeed iyo xarumihii kale oo booliska iyo ay ku shaqeyn lahaayeen ayagana waa noo dhagax dhigan yihiin waxaan rabnaa inaan sii wadno degmiyo gobolkaaga deegaanada tuulo qofaanad dutiisa shirabin hawdooran mooyinka reer Galmudug dadkii deganaa go'aamada iyo qaabka ay u arkaan inay hadda wax u socdaan oo loo wajahay dib u heshiisiintii kadib markii aan aragnay aragtida siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda dawlad goboleedka Galmudug
iyo weliba dadka u matala dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda hoose golaha deegaanka iyaga dooro dadkaagi weeyo dalkuma imaane iyaga dooro dowladda hoose golaha deegaanka iyaga dooro dadkaagi weeyo dalkuma imaane iyaga dooro